see abuu ahaa gurigii aad ka soo barbaartood ka soo baxda ganjaalka iridka aad ka soo istaagtay qaabkii uu ahaa baad banaanka iyo bulshada kula dhaqmaysaa hadduu ahaa guri violence oo markasta dhibaato ka dhex taagan tahay oo markasta muran ka dhex taagan yahay oo hooyadii aabihii markasta is haystaan oo faamilku isan ahayn faamil isku duuban banaanka markaad timaadi ma taqaana dadka sida loola dhaqmo waayo backgroundkaaga wax ka khaldan yihiin marka waxaan rabnaa inaan sheer gareeno maxaa ninka looga baahan yahay maxaa sanaagta looga baahan yahay gabadha looga baahan yahay cafwan ninka iyo gabadhiisa xaaska waxaa looga baahan yahay kow qofba qofka kale saan idiin sheegay qofba qofka kale inuu priority-ga siiyo markaa ninkaaga priority-ga siisid yacni qofba qofka kale inuu ka dhigo qofkiisa koowaad haddii aad ninkaaga muhiimadda siisid waxaad ogaataa gabar yahay adigana inuu muhiimadda ku siinayo laakiin saan ogsoonnahay muhiimadda waxaan siinaa asxaabta xaajigii baa jooga gurigii buu jiifaa ma kala jecelin bannaankan gabdha la fadhiyaa xaafad heblaayaan qaraabo kiila u aaday asxaab haddii la ii yimaado asagii korkiisa ma kala jecel albaabka u soo riix baan leeyahay kow waa inaad asaga muhiimadda siisaa priority-ga koowaad markaad asagii muhiimaddii siisid kadib adigana muxuu ku siinayaa muhiimaddiisa saana ogsoonnahay allah subxaana wa tacaala rasuulka alayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi addunya mataac fa ina khayru mataaci addunya almar'atu asaalixa adduunyadu waa raaxo laakiin yee raaxa u taha waxa qofka ugu khayrka badan oo adduunku raaxaysta waa qofkii hela haweeney wanaagsan waa meesha hadda ingiliishka aan ka dhahno ingiliishka marka la fiirinayo every successful man there is a behind of women nin kasta oo guulaysta waxaa ka dambaysa gabar that means ninkaaga haddaad mar walba priority-ga koowaad siisid waxaad soo saartay aabbihii carruurtaada nin islaameed maadan soo saaren guriga hooyadaa markaad joogtay wax kasta waa helaysa maxaa uga maarmi weysa inaad guursatid maxaa u soo raadsatay inaad guursatid haddaadan nolol isa siinayn asagii haddaadan siinayn asagina aadan ka keensan karin maxaa u guursata gabdhayo secondly guurka aan guursanno annaga soomaali ahaanta wuxuu ku beesgaraysan yahay oo mar walba focuska u saaran yahay guur la dhaho inaan wax dhalo hadda intiina haddaa idin weydiiyo aan dhaho maxaa u guursata jawaabta koowaad ay siinaysa waxay tahay awlaad inaan helo isn't it weli ma idinku jirtaa gabar ku fikirto oo tiri nolol fiican baan rabaa nolol wanaagsan baan rabaa nolosha wanaagsan see u egtaa maba naqaane awlaadda ilaahay baa keenay imisa inta isguursatay awlaadaan isu dhalin alfa wa alf kumanaan ma aan hadafkaaga inaad ku xirtid mar walba aad guursanaysid kow gurigaaga hooyadaa markaa ka baxaysid ma aha ninkaa inaa u raacdi keliya awlaad baa rabaa awlaad ilaahay baa ku siin kara asaa rasaaq ah awlaad ilaahay baa ku siin kara laakiin waa inaad tiraahdaa markaan guursanayo waxaan u guursanayaa nolol fiican qof wanaagsan inaa helo waayo qofna qofka kale garabkiisa kama maarmo wiilasha kama maarano gabdhaheena wiilashina nagama maarmaan laakiin waxaan dhahnaa baryahan waxaa socota arrin la dhaho wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan waxaan dhahnaa fiiriya maxaa dhahdeen wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan gabadh ila qabay ma ahan gabdhaha yarka soo kacay kelmadaas ila dhahayaan gabadh ila qabay maxay leedahay wallahi billaah nimanka Soomaaliyeed nolol ma leh wal iskala noolna awlaadaas dartoodan kula noolna isn't it macnaheedu ma ahan gabdhaha hadda soo kacay kaliya inaan ka hadlayo wartan la qabo waraysta maxay ku leedahay wallahi ilaahay ba awlaad iga siiya ma ahane awlaadaas dartiisa ula joogay ma bala joogeenba laakiin wiilasha maxay aad loo saaray ma is weydiiseen have you read yourself adiga ma is akhrisan horta wiilasha Soomaaliyeed romantic yaa ka dhigi kara idinka ka dhigi kara ragga cadaanka ala tartamano aleenay nolosha wax ka yaqaanaan way fahansan yihiin fine okay separately as ahaan anaga Soomaali ahaan waxaan ku kala duwanahay koritaankeena horta run ahaantii markii laga hadlo markii la korinaayay wiilasha iyo gabdhaha looma korin si cadaalad ah gabadhi baa dhibanayd gabadhi waxay ahayd yani qof mar walba u taagan reerka hanashadiisa
ninkii Soomaaliyeed horta reer hanashiis waxba kama yaqaan oo markaa guursanaysa taa ogo wuxuu yaqaanaa kaliya in la dhaho bariiska waa dhamaaday baastadan way dhamaatay secondly laakiin mid aan ku eedeena maxay tahay wiilasha Soomaaliyeed naxariisna ma siiyaan wiilasha Soomaaliyeed hadal fiican nagula ma hadlaan wiilasha Soomaaliyeed jacaylna ma siiyaan laakiin wiilasha Soomaaliyeed anaga jacaylka daanasan xageeb jacaylka uga iimaanaya ba kulata marka hooyadii soo barbaarisay cadaalad darro ay ku soo barbaarisay adigii uu ku qabay markuu ku yimid oo aad albaabka inta u soo riixday aad gabdho banaanka sheeko ula fariisatay xagee uga iimaanaysa romantic inuu noqdo wiil Soomaaliyeed waa inaad priority-ga asaga siisaa marka hore si uu asagana priority-ga ku siiyo tan labaad oo mar walba aan sameyn Soomaali hadaan waxay tahay ninkaaga waxa uu jecel yahay mala jeceshaha ma interest garaysaa wuxuu asagana interest garayo absolutely no ninka Soomaaliyeed ninka Soomaaliyeed interestigiisa markaas isid wuxuu ku siinayaa adigana interest for example tusaale waxay jecel yihiin wiilasha Soomaaliyeed oo kale waxa laga yaabaa ninka ku qaba inuu jecel yahay inuu intuu habeenkii soo baxo markuu casheeyo soo baxo oo banaanka fadhiga soo fariisto oo feeling geysto ama ciyaar geysto ama some habits dabeecada qaar rag baa leh laakiin maxaa sameynaa waa isbuusana afka taageena qolka tageena waxaan leeyahay ninka maanta dhan sugaya cashada u sameynaayo wallahi bilaa wax niyada ima buu ahaayaba kan waxa laga yaabaa asaga interestigiisa inay halka gashay horta goorma qofka soo jiidan kartaa waxa uu rabo kasta markaa u sameeyay wuxuu jecel yahay ku taageer soo ag fariiso markuu TV-ga daaro waa cashada waa soo baxay waxa laga rabaa mid waxa rabtay sugaysa inuu sheekeeyo inuu kula hadlo soo ag fariiso wuxuu daawanaya la daawo bal هذا حين هكا عاين ترتيب واحد هذا وحن ميا جعلاتنا داوتي هذا ما كله وناكس انتهى حلقة بهبين نذ أهرية إنه سكول الكوب جوابه لكني مركز هبين بهبين كحجة هذا البنت أتمنى أترادي مو حدا ونسا برنامج كاجي ما أنا كدم وحكوف الضانايا إن تقف كسو جلسة برنامج ما دام أديك أنا الربين سيدو كلاته ninkaaga mar walba appreciation ma usubisay yani ma u mahad celisay waliga ninkaaga ma u mahad celisay ma tiri la'aanta hadaan ku heli lahayn adiga uma leen may maanta heerka inaan gaari lahaa aad u mahadsantaha waliga ma istiri aamusa wax yar asma qalno ما استري ولي قال يعني ما هذا علسة ما أنت هيرك جارسيس أنت أساك وسو جارسية صوما وحير هو هذا قبلنا سو جارسيسي اللي على أيضا ستيل شزيان هو هذا مركز لا هاي وحكى هذا شيء هو هذا لكن أيضا نفته عروته تقول كما يهلن هو هذا ويكسو جارسيسي صحيح ما أنت ماش صومالي مركز له بقول كذا سياشن يسدين even 100% حتى هذانا أودين له بقولك بس سجاشن استقال وحنا صار وهويين سوماليين وحنا ما أنت قرب كان استاج وهويين ما أنا أبياشن إن لجواي وحي لوجا بعنا لكني وقت بيعلى كل ماي أبياشن وحي أود وكريوين واحد جرت عافمات كمرك لبرنيو حنقول له PTSD إن بدن وعلى جهة لا فيلايا وادنا برنتون إن شاء الله PTSD ذو وحنقول له post traumatic stress disorder waxa keen xanuunkaas qofka markuu violence dagaal markuu la kulmo qalbiga jabaya qalbiga markuu jabo himadii hadafka uu lahaa oo dhan waa burburaya hadafkii markuu burburo mas'uuliyadii iyo wixii laga baahnaa uu ilaawaya even including himself naftiisa marka lagu daro aabayaasha Soomaaliyeed dagaal la kulmeen dib bay la kulmeen rafaad bay la kulmeen markay dawladda dhisneed ma jirin aaba saaqid ahaa ama qayr mas'uul ahaa laakiin dalkii iyo dagaalkii markuu burburay kadib aaba kasta muxuu noqday iska غير مسؤول maxaa ku kalifay ma ahan ayaga inay xumaadeen aabayaashay waqti baa la kulmay alxamdulillah hooyooyin Soomaaliyeed waxaan filayaa run ahaantii oo inaba aan u mahad celin karin wallahi alcadiim hooyooyinka Soomaaliyeed waxay noqdeen the heroes of the world geesiinta adduunka waayo dal 25 sano burbursan oo maanta wali ku tala jiro inuu dhismo ubad soo saaro waxaan aroos ka jir maalin walba farxad ka jiro waxa keenaya hooyooyinka Soomaaliyeed ba moraal ahaan noo dhisay
hooyadii Soomaaliyeed marka kama soo bixi karto waajibkii ahaa inay cunugeedii soo koriso at the same time inay cunuga tarbiyadiisa ilaaliso marka run ahaantii single mother iyo single father nolosha midna uma wanaagsana waxa garan karo qofkii ku soo koray kalinimo inay hooyada kaliya ku korsato ma helisid jacaylka waalidnimada u baahneed inuu aabba kaliya ku korsadana sidoo kale ma helaysid dadku waxay u qabaan hadii hooyada ala nooshay aabba ina ka maarantid laakiin ogaada aabba wuxuu leeyahay priority gooni oo Ilaahay ugu talagalay jacayl gooni uu leeyahay qofka maanta ku soo koray family buuxa hooyadiis aabihiis walaalihiis uu ka nasiib badan yahay qofka maanta hooyo kaliya korsatay وأنا كفر حد بدنيا even moral أهان وكفر حد بدنيا وكأكتف سيا وكوحجات بدنيا مركو أبياش لجمع مارمو هويو يمكن لجمع مارمو هوين صوماليات أيجا نكوري الحمد لله أبرشيشن مركو مقصود بس أنا رشاد أوجد إن هذا كمار من كذا مو ما أدعي لسه مروال بأتكلي جات هاي أما أكهر فريو هديت ما وقعد إكتر إن سوي حسوس سيد مركو أتكلي جا هيد نرش أتكون ولد ما أنت نرش إيه فرحة أهي سي مو ما أدعي لسه ما تري هذا كذا ما أدعي لني فرحة ما أنت ما بهلا رن أهانتي markaad kelmadda ku tiraad ma ahan ina iska dhahaysid maxay u taraysaa asag mi isweydiis waxay u taraysaa dhiirigelin wuxuu mar walba ku haminayaa inuu san ka fogaan qofkaas waayo wuxuu isu arkay inuu yahay qof wax bedeli kara wuxuu isu arkay inuu yahay qof farxad siin kara laakiin markaan niyad jabino oo iridka markay ka soo galaan ba aan muran iyo dagaal iyo qaylo aan kala hor istaagno aba niyad ma yeelanayo xaajigi gurigu ka laabanaya nolol kaloo iska raasna asagna noloshu ka dhacay adigna waa ka dhacaysan la mushkil faa'iido dhan marka idinku ma jirto marka si asagna u badbaadin kartaa adigna isu badbaadin kartaa appreciation waa ina u suubisa u mahad celin ninkaaga xitaa wax yar xitaa haduu soo ku sameeyeen sometimes waxa laga yaabaa marka tiraado wallahi maanta saas baad ii sameysay ma ilaaway waxa ii sameysay wuxuu ku leeyahay waxba kuma sameeyeen adiga muhiimadaadi ma ahan inuu wax ku sameeyo ogow ya muhiimadaadu waa in asaga dhiiri gelisaa inuu wax ku sameeyo brito not now romantic surprise ما ديارنا وليين waxaa idin weydiinayaa laakiin su'aal waan su'aasha kaliya oo wareerisa aniga su'aashaas waxay tahay waay loo dhahaa Soomaalida ma taqaan romantic maxaa anaga adduunka naga reebay waligiin ma isweydiisan su'aalahaas dhaqan good exactly haddaba ogaada hooyadan maanta hadaa weydiino dhan hooyada ugu sakaysa anda hooyo aabahay farxad ma ku siiye taar iyo maqrib intu ka dhacay way amaanaysa hooyo dhahaysa kuma korin dhaqan romantic ma jirto laakiin romantic muxuu yahay romantic Soomaalidu waxay u faahantay ubax la isu keeno chips la isu gado daarizin surprise ka nolosha ninkaaga aasisay ma ogtaa naftaada kow inay ka tahay nolosha ninkaaga aasisay naftaada kow inay ka tahay ma ogtaa romantic horta aad raadinaysid taas kow ma ogtaa naftaada hadaad ninkaaga siisid waa romantic surprise waayo kuma seexan kuma u soo tusin inuu adiga ku helo laakiin calaf kadib maxaa u fududaysaa all jaranjarooyinka uu ku soo maray laaba u fududaysaa Sooma romantic surprise waxay saacidinaysaa labada qof jacaylka iyo kalsoonida ka dhaxeeya inay isu ziyaadaan taada kaleeto understanding ninkaaga idinka dhaxeeya adiga iyo ninkaaga may hashidin gabdhaha codsaday understanding ninkaaga ma fahantaa asaga sama ku fahmaa ma ahan fahanka ninka aan ka hadlaayo inay tahay cuntada uu baahan yahay oo markuu soo galaa leedahay shaqadii buu ka yimid waxaan cuntada hala siiyo ma fahantaa ninkaaga wuxuu jecel yahay ma fahantaa ninkaaga wuxuu neceb yahay ma ku fahmaasa asaga haduusa ku fahmin see u tusi kartaa inuu ku fahmo waa ina ogaataan horta wax walba adiga markaa bilowdid buu asagana ku dhaqmaya tusaale waxa idin ah run ahaantii dumarku waa maskax waxa ku jirta Ilaahay xalkeed og yahay dumarku dadku waa yasaan raggu waxa laga yaabaa dumarku inay yasaan oo ay dhahaan gabar baa tahay wax saa u sii weyn meesha kuma haysid laakiin maskaxda idinku jirta wallahi alcadiim nagu jirta waa ku maamuli karnaa adduunka maanta hadii loo dhiibo waqti waxa jirta rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo asxaabtiisa bay'a la galay quraysh oo yahuud ahayd quraysh waxay rasuulka condition shuruud kaga dhigtay alayhi salatu wasalam يعني حجك
sanad yani sanad baa soo xajinaysaan sanad ma soo xajinaysaan يعني باعدي بشروط أدق ku xirta rasuul عليه الصلاة والسلام waa loo yimid waxay baa u yimid wuxuu ku yiri amar dadkaaga inay xiirtaan rasuul Allah alla xiirto rasuulka minbarkii fuula markaas wuxuu dhahay asxaabta kulligeen hal xiirto way xanaaqeen asxaabtii rasuul Allah inta gaalada amarkooda ma fulinayno wax kasta dhacay ma yeelin rasuulka soo xanaaqsan buu ku soo laabtay muslima oo wajigu guduudan yahay cabursan yahay wixii tar maxaa kugu dhacay rasuul Allah wuxuu asxaabtaydii baa maanta hadal aan iga diiday inta u tagay baa xiirta markaas waxay dheen ma xiiranayno markaas waxay tir rasuul Allah xanaaqine ta banaanka u baxdid oo ninkaaga ku xiiri jiro u yeeratid xiiro rasuulka عليه الصلاة والسلام intuu baxay buu ninka u yeeran jiray wuu xiirtay markay arkeen rasuulka mindida isku bilaabay kulligood mindida way ku ordeen xataa qaar baa isa sarsaray maxaa pointiga ula jeedaa horta waxaad qofka ka rabtid marka hore adiga rasuulku wuu nabar عليه الصلاة والسلام adiga waa ina iska bilowda tus marka tusid laazim wuu ka imaanaya qofkaas war xataa nin kasta oo maanta nagu jiro oo aan waxba fahansanin oo nolosh wax ka aqoon oo dhaga xiran oo markii horena guriga hooyadiis amiirka ka ahaa gurigan markuu yimidna isu qabo inuu wali amiirka yahay adaa bedeli kara simple way carruurtaada aabba fiican waa u samayn kartaa haddaa adigu ugu talagashay inaa u samaysid marka ma fahamta ninkaaga waxa uu rabo muxuu jecel yahay in loo sameeyo muxuusa jeclayn ragga qaar baa markay yimaadaan oo shaqada ka yimaadaan waxaysa jeclayn baa layidhi inay hadlaan asalaamu calaykum haye carruurta seeyihiin wuu galayaa musqusha wuu qubaysanayaa cashadu cunayaa direct go to the bed sariirtu turu su'aadaya waxaa laga yaabaa ninkaas inuusan jeclaynba in lala hadlo dumarka qaar gabdhaha qaar aa sheekaysano waxaan ku idhi gabar baa bari ii sheegtay waxay tiri wallaahi ninkayga waan jeclahay bay tiri aad baan u jeclahay haye asagana aad buu ii jecel yahay weliba waxaan hubaa bay tiri 99% inuu ii jecel yahay waan farxay waxaan isir maasha Allah maanta waxaa heshaan karo qofka kaliya nolosha ku sixi lahaaba waxaan ku idhi maxaa ku kasbatay abaaya ninkaaga see u kasbatay saa u sugaayay ubax baa u keena iyo waraaq baa u qoro waxay iigu jawaabtay ninkayga waxaan isku dayaa 100% inaan fahmo waxa uu rabo 100% waxa uu rabo xaaladda uu taagan yahay waa isku dayaa bay tiri inaan fahmo suu asaga ii fahmo wuuna ii fahmay bay tiri tusaalahaas ii soo qaatay waxay tiri markuu soo galo ninkayga waxaa iri waa sheekaysanay marka waxay tiri markuu soo galo cashan siiya haye xabiibi saatahay ma fiican tahay fiican waan cashaynaa shib sariirtiisu aadaa faamiladiisa ama asxaabtiisa waxa uu maanta maalinkaas ka dhaxeeyay arrinta buu la hadlaa waxaa laga yaabaa inuu iska seexdo bay tiri yani inuusa aniga ii sheekeen baan ka wadaa ujeedadeeda pointigayga haye marka waxay tiri waa arkay bay tiri dabeecadiisa inay saan tahay wuu jecel yahay soo maaha ma ka qasin bay tiri markuu seexdo anigana geesteeda kala markinta u tuurtaa waaga markuu bariya nabad haye markaas wixii nolol idinka dhaxaysa waa meesheeda waxaan ku iri oo fiiri nin maanta dhan iga maqnaa baa iri oo maanta dhan shaqo ku maqnaa markuu hadda yimi hadduu barkiinta xagga u jeestay maxaa anigu waaba qaylinayaa ku raxan lahay waraa adab dirnaa ma hadashid waa saa jecelnaa soo maha laakiin maxay tiri no way bay tiri ninkaaga isku day inaad fahantid haddaa fahantid wuxuu jecel yahay adigana markaas wuxuu kaa dhigayaa periodta qofka koowaad uu fahmo mar walba taada kale ninkaaga xooji mar walba garabkiisa waxaa u taagan tahay inaad mar walba qof ka soo saartid ninkaaga wuxuu noqonayaa haddaad qof ka soo saartid geesigii birito maskaxiyan xataa wuu u dhismayaa ninkaaga xitaa maskaxiyan haddaa mar walba see u soo saari kartaa haddaad u sheegtid waxyaabaha uu ku fiican yahay ninkaaga meel kasta uu ninkaaga ku fiican yahay u sheeg horta ma ogtahay waxaa ku fiican tahay saas horta ma ogtahay kan iyo kan baa ku fiican tahay deeqsi baa taha waxaan kugu jecla daacad baa taha waxaan ku jecla nin run badan baa taha waxaan kugu jecla nin kalsoonida aad iigu kalsoon baa taha waxaan kugu jecla wallahi aabba fiican baa taha weligii aabba kula mida ma arag weligii nin kula mida ma arag umalayn mee gabar aniga ay noloshan inay haysato you see asaga markaas waxay u noqonaysaa strength yani way u ziyaadinaysaa quwadii ku jirta xataa way ziyaadaysaa wuxuu isleeyahay waa run wallahi nin kaa fiican ma jiro adduunka wuxuu isleeyahay aabba kaa fiican ma jiro adduunka muusey kaa fiican adduunka ma wala helaba soo ma yani ninkaaga mar walba
anaga waxaan ka bilownaa rasuulka calaysalaatu wasalaam wuxuu yidhi dumarka waxaa naarta u badiyey buu oo u badiyey buu yidhi si kasta oo wanaag aad ugu samaysid maalinkaa khalad ka gashid bay wanaagii dhan hilmaamaysaa markaas waxay soo xasuusanaysaa mistake yarta aad ka gashid daclada weligay wax fiican ba kuguma arag ilaa maalinkaa ku bartay ilaa hadda balaayo iyo dhibaata intaa nagula kor taaganta soo ma exactly for example hadda tusaale waxa ku ah marka uu rasuulka calaysalaatu wasalaam waana xaqiiqo jirta wanaagi ma xasuusano ee nimanka noo falaan laakiin waxa xasuusanaa weakness-koodi intoodii xumayd xaleena maxaa saa u samaysay wax adduunka aniga farxad kuguma helin imisaan farxad ku siinayo kuleeya marka oo waxaan ku siinaya dhanka kacmiya waxba farxada kuma siin maalinkaas wuxuu bilaabayaa farxaddii uu kugu haystay inuu kaa jaro laakiin maalinkii weakness uu yimaado waxaad tiraahdaa qaali maanta maxaasaan isaan weliga kuguma arag dhee intaad dhihilaad iimaada samayn waxaad ku encourage garaysaa ku dhiirigelisaa weliga khaladkan kuguma arag adoo samaynay maxaa u samaysa maanta markaas wuxuu isleeyahay walaa khalad aada geli jirin baa maanta gasha laakiin markaa sheekada uga bilowna warheer weligay farxadaada ma arag oo maalinkaa ku bartay ilaa hadda dhibaatay problem baa kugula joogaa hadda iyo maalinkaas wuxuu bilaabaya farxaddii uu ku siin jiray awal daacaddeeba ka ahayde cancel inuu kaa saaro oo mid farxad uu siiyo uu kaa raadsado soo marka please waxaan nimankeena ku encourage garayn karnaa ama aan ku xoojin karnaa anagoo u sheegna waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin mar walba haddaad sidaas samaysid asagana mar walba wuxuu isku dayaa khalad kasta aad ka gashid ama xumaan kasta aad samaysid inuu daboolo wanaagaaga uu kugu soo celceliyo daacad iska aho mar walba taas way ku wanaagsan tahay waayo waxa weeyaan waxay u wanaagsan tahay gurigaaga haddaad qof daacada tahay soomaalida daacadda waxay u taqaanaa hadda kahor waa idin sheega daacadda waxaa loo yaqaanaa gabdhaha masaakiinta ah oo iska aan kala jeclayn hadduu 5 habeen yimaado iyo hadduu 1 habeen yimaado iyo hadduu wax keen iyo hadduu wax keen baxlo leeyahay wallaahi waa gabar daacada asagoon halka intuu istaagu leeyahay wallaahi gabar daacada haystaa daacadda taas baa daacadda xaqaagana dhacso xaqiisana si xaqaagana dhacso kiisana u ogolo oo si markaas honesty baa taha xaqiyaamin يعني حقيرين وناك سوق سميها كحقيرين إلا حد أديكنا أصبع داعد مركا أهو ومر والبكرون شيء سوى حنين كذا أصبع نفسه سيدو كلا نينكاجا مركا اسكول عذان أو مجد وإذن دحي مادو أنت أردي لد ولا تشرند ولا شيء ومن ده تكوجد وسمع صاحبته هو يدا حالة تشرند السجا السوهر فريستا حتى هدو تاجي حالة سرير تحت هدو جو لا هذا واحد هذا خلط كاسن كاتر سنة يا أنيقا خلط كاسن كاتر سنة محاكا قبان كرتا محا إنه حلقة ما أنا معناه هذا الهديد خلط بان كاتر سنة أنيقا دون وحويان فريتان وحان أهين أو إمارة يا ماله الله سبحانه وتعالى محيري أكتد وحلو وجعل كبديه هو قولي إسلام مركي للسوء وحلو ونعب كبديه هاي نواه مركي ودمايو قولي دمي دينيا مركا كسو تكتد يو فائدة ولا يوا حمات هالكان الأوبي قريت بن هوي أباك لا تجين محانو دم بي هوي والبشر عنقي لا تضبع عنقي حيستين هلا صار عرض بناك وحقوق قد صما قريت معي ورويا ملاهن إلى شو قريجا جمروا البجبرية أو كنت حذر قعنت مديك إنك قبستين قعنت بدي إحنا نلاش هذا كلا قبسو نينك خالد مركو كاجر أنت كنت دقيق له ولا شيء أما صاحبته ولا شيء وحلا جيابه إن سن أوجين وأنا جنينك أكوها يو ولا شيء واحد جرت وحياة بدن أكتها إيه وحياة بدن إسوقين هذيك كلية بقى واحد نك أي هذيك إنك دحية أو ناجح ولا شيء واقف كل الألات حمانا كل مرة بتقيد مركي عرفتنينك أو يعني هذا الله يزبدل كل إيمانية حكوا قلت النساء ناو بساسو كنا حكوا مليين أتا حكوا ما ملاين أيضا وحكادك ولا شيء لكن حكوا ما ملاين قف عادي وخلط وقلا الله سبحانه وتعالى محل لي الضمادة إذا وجه على قفك أنتو دنبابة كصلاة دنبية صمة خلد وقلا هذيك وخلد مكرتا أسجن وخلد مكرا هذا النقطان لبقف أمر والبخلات كإسكجلن إسلا شهر جريء أمر والبقى محد هلا يسي محد يوناجسي فرنا أنت نورشي نقول وك جارسان لكن هذه مرة والبنورشي أنت أسكت عدن قفص لحد أذن دحي ماذا never you will never get a solution ولا حل مهلس ugu dambeyn gurigaaga wuxuu noqonayaa guri furinkiisa laga tashaday waayo xumaantiisa wanaagiisa waa laga tashaday sidoo kale waxa jirta waxa aan dhahno waa ku eedanaa ragga Soomaaliyeed
caafimaad ahaanna waan idinla wadaagaya insha allah waxaan dhahnaa ragga Soomaaliyeed garasho ma laha laakiin maxay leeyihiin garaacasho yani ninka Soomaaliyeed waxyaabo badan kuma garanayo ilaa aad weydiisatid asagii Sooma waxaan dhahnaa muxuu u garan waayay sabab muxuu ninka u garan waayay mar walba ma wuxuu iga sugaayay in aniga wax weydiiyo ma wuxuu iga sugaayay inaan waxaas u baahanahay muxuu ii fahmi waayay waxa aan rabo Sooma laga yaabaa gabar la qabaa tahay gurigaaga joogtaa arrin baa kugu soo korortay arrinta kugu soo korortay ninkaaga koow hadaad u sheegno aad in arrintaas timid horta miyuu ogaan karaa waa maya second hadaa u sheegtid xataa waxa laga yaabaa inuusan ujeedo badan ka yeelan oo arrinta marka u bandhigto aad tiraadid niyo saasa jirta yani caawitaan baa ka rabtay laakiin in direct wax u sheegto ma uu ku fahmin wuxuu ku malayaa un problemka inaad yani la timid un aad u sheegaysid kaliya bartu kaaga si dhaqaaqay arrintaas ma dhacdaha wallahi I'm sorry anaga marka waxa raadinaynaa inuu ninka dhibkina la fahmo faadan familkayga dhib ku dhacay ninkayga waxaan leeyahay waa inuu reerkeeni waxa waa inuu dhaasay wax jiraan waa inuu aniga waxaan iyo asaga wada joogna waa in yani raggi badankood garashadii baa ku yar mental ahaan marka loo fiirsho ragga waxa ku badan grey matter aad ugu badan ragga anagana waxaan ugu badan white matter wax loo maskaxdeena raggu waxay mar walba focus gareeyaan hal shay ma focus gareeyaan laba shay laakiin dumarka ilaahay hooyo ugu talagalay training baa ilaahay baa markore ku soo train gareey guri baa joogtaa hooyo lagu talagalay caruurta baad ilaalinaysaa iskuulka waa u diraysaa asagii baa ka fikiraysaa naftaadii baa ka fikiraysaa gurigiina waa problem ka yimid waa xalinaysaa you see meeqa point aan isku haynaa ilaahay maskaxdeena markore laaj buu ka dhiga wuxuu ugu baday wax dhow white matterki ayagii waxay leeyihiin raggi hal focus wax labaad kuma dari karaan focuskiisa waa inuu xafiiska tago ku soo waca oo ku dhawaayay gurigi maanta maxaa ka dhiman aad waxaas ka dhiman daarizid he can't focus many things nimanka wax badan ma focus garan karaan soo marka u sheeg u tilmaan ma aan weakness ay leeyihiin waa psychologically ilaahay baa ku abuuray hadduu ninkaaga wax badan garan waaye u sheeg xasuusi qaali waxaas baa garan weysay dheh wisa saxaya markaas hadduu nin yani saxan haduu yahay sidoo kale ninkaaga u duceey mar walba asagana ha ku duceeyo isu duceeya mar walba marka la isu duceynayo ma ahan markay balaayo timaad in la isu duceeyo markii biilku yaraado oo balaayo dhacdo beelada gabadha ilaahu risaha qadar rabbiyo adaa baxsha sooma laakiin waxa la idinka rabaa seeninkaga yani power see ku yeelanaya awood see ku yeelanaya hadaad u duceyn markasta maqashii markuu baxay adoo shaatiga u xiraya shaatiyaashka u xirnaa horta adoo shaatiga u xiraya adoo shaatiga u xiraya maqashii ninkaaga maxaa ku dhahaysaa ilaahay ka soo nabad celiyo ilaahay waxaan talaabo kasta aad qaadaysid ilaahay ka dhiga talaabo khayr badan soo noqo adoo nabada you see shaqada Allah ku fududeeyo waa runteed waa u duceysa shaqada Allah ku fududeeyo you see because of waa maqashinaysa xaalada waliba asaga waa maqashinaysa waxa leedahay ilaahu ninkayga ee xifdi rabbi raxmaan waa ogtaasa u jeclahay kama maarme oo waa runteed miyaa ka maarantaa hadduu inta ka tago ku soo laaban waayo maxaa sameynaysaa soo ma wareeraysid waa oynaysaa soo maaha u sheeg ninkaaga yani tus waxaa tustaa inaad sugaysid inuu yimaado soo nabad qaba waxaa tustaa inaad ku faraxsan tahay imaanshihiisa labaad soo laabto maqashii dhagtiisa markay maqashiiso uu banaanka u sii baxay wax kasta haday ku dhacay wuxuu leeyahay xaaskaaga ku soo duceysa wax kuma dhacayaan حتى ما أنا كشقة كهلمة دعاء كهلمة تد وكسوح حسوسين دونا هذا قبلها حاسس كلا تجابية ما أنا يعني مرة بهذا أدعي سنين كأ أصوك ومقلايا شقة أصوك كجرا مركب يحسك نقدان أقولي ما حليه والله ما أنت صاي ولا حسوس حتى أوه سوري ما تدعي عن كاهل ماما وحكوا دعاء دعاء عن كاهل ماما أصلا مركز صدوني وحجرش جرد ليه ونجران يا رجل سومالي وحبي جرتان الحمد لله محو كلها هي سدوا كلا قال أنا أنت صار لعبنايو إلهي إيك أمان سدوا already وحكوا كلا تكتر لوقف وسوق قلبي فوق السنة دعاء دعادينا مركا لaba qof oo isqabto kasta marka isu duceeyaan wixii ziyaadsa jacaylkii maxabada ka dhaxaysa ee hoos uma dhigto ducada mar walba waa powerful waxbay ziyaadaysaa waxba ma naaqso
الله سبحانه وتعالى حديث وحكوا لي حديث القدسي وحكوا لي إن ربكم تبارك الله وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى وحي شوضا مركو أدونكيس قعمها كور أتاغو أو وحكبريو وحو إلهي كوحي شوضا إن أدونكيس أسوى قعم مران أصول لابتو. that means دعاء نينكاغا أدعي سوى دعاء مقبول ولغا أقبلايو أدعي كليغا مركاتا صلاة مركاتو كتي أدعي أصونكو أغين أدعي waxaad arkaysaa gurigaaga oo barakoobay mana taqaan suu ku barakoobay wuxuu ku barakoobay ducada ninkaaga mar walba la garab taaganta ku tababar asaga in la isu duceeyo salaad kasta markuu ka baxo oo jamaacada ku tukado waxaad noqonaysaa markaas family bulaalay laakiin hadaan bal is xasuusanba oo waxa weeyaan kabta ordaysa iyo karinta ordaysa la soo hor yimaado that is not the life. Secondly mid kale aan la wadaagay waxay tahay naftaada taas nimanka u sameynaysa Soomaa hadaba naftaada adiga maxaa u sameeyso ma isu qurxisan ninkaaga sida uu jecel yahay ma isu qurxiso waliba gabdhaha Soomaaliyeed alxamdulillah maanta waxa weeyaan kulligan af Soomaaliya fahmayna waxa ay darnaa lahayd yani dadka ajnabi inta ugu jiraan inaan luqad international dadka dhan wadaagay inaan wax idin kula gudbinaa way waxa la ogaan lahaa daciifkana yarka baa la ogaan lahaa laakiin hadda isku sir qarsanayna Soomaalideena waanaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku xunnahay oo mar walba ragga Soomaaliyeed ay nooga soo cabtaan oo mar walba ninka niyadiisa sii jeedisa maxaa kamid ah nadaafadii gabar kasta markay banaanka taagan tahay oo aan la qabin oo gabar ay tahay oo calaf doon ay tahay gabar ka qurux badan ma leh حتى مالك أي يعني بحيث أي مال آديس وصوت بالعارس تحول هاي بريمال أصحى كان رئيسي because she wanted to become beautiful إنها قروح بدنا تعرفها لكن مركي الجورس ذو هل ده مالك إيش ورنا شباب كتب مالك كو لأنه أور بالله أما ولع صاقله that is the end of the life قبل الصوماليات إن استرترتو نين كان مرة بأي سجارك تعرسات هذه يكوه وأسكت مات هبين كلا أرصا أوجودن بس تضبط أي كبحث حال إذا كرر بقى مركه waxyaabaha dadka qalbigooda soo jiita indhaha dadka maxaa soo jiita quruxda ninkaaga hada u hadiyaysid quruxdaada uma leen ma inuu meel kale ka fiirinayo soo qurxin ninkaaga nadaafadu waa qayb kamid ah nolosha an-nadaafatu nisfu al-iimaan nadaafadu maxay kamid tahay iimaanka barkiisa lagu dhahay fiiri nadaafadu marka iimaanka barkiisa kamid noqoto guurkaagi wuxuu kaamilay diintaadii maxaa u guursatay marka hadaad isku qurxineen asaga waxa isku qurxinaa oo kaliya maalmihi xaflada ay jiraan aroos baa jira asalkaas fadhiya inta la soo martid baa la barqaas wuxuu ku leeyahay xataa way barteen nimanka Soomaaliyeed maalinku ku arkado qurux badan wuxuu ku leeyahay maanta maxaa jira ma martaqaad baa jira Soma wallahi alcadiim way ku weydiinayaan maanta maxaa jira ku leeyahay ma dad baa noo soo socda that means asaga priority maada siinba isku maada qurxin priority waxa siisay ummadii kale banaanka hadaba yaa way qofka alla noo shahay adiga ma soo ogtahay inay jiraan gabdho badan ama dumar badan oo jaanis u waayay inay guursadaan ama ilaahay baan ugu talagalin ama shaqo iyo waqti bay kulmisay waqtigeedii ama wax family problem baa jirta ma guursan karto ama way xanuunsan tahay maba ilaahay ba u qadarin adiga markuu ilaahay gift ku siiyay inaad guursatid oo ilaahay ku qoray inaad guursatid oo calafkaagi uu ku imaaday maxaa ku diiday calafkaaga qalbigiisa inaad degtid oo soo jiidatid maxaa isla mid dhigaysaa yani qof aan waxba haysan ninkaaga mar walba isku qurxin ninka markuu yimaado maxaa sameeynaa for example dhaqamada Soomaalida waxa kamid ah dad baa ku iimaanaya mar walba qolka ninkaaga ha ka duwanaado qolalka kale billahi calaykum see uga duwanaanaya anaga waxaan sameeynaa family oo kale waa weeyeen Soomaa war xataa joodar yar meel haduu ka leeyahay oo aan la seexan karin yani nolosh moogta waxa laga bilaabo mar walba meesha u hooseysa ha ka bilaabin dabaqyo hadaan deganahay meesha u hooseysa hadii yani gurigaas dad isgeey aysan joogin oo meel la kala seexdo la waay oo asagii adiga halka joodar idin yaala joodarigiisas iyo go'iisas iyo barkintiisas ha ka duwanaado joodariga dad kale isticmaalaan qolkiisa markaad priority ninkaaga siisid gogashiisa markaad siisid priority muhiimadda markaa gogashiisa aad taagtid ninkaaga meel uu ku nasto hadhow markuu yimaado qalbigiisa dhan waa degaya daalka iyo dhibka uu soo marayna uu hilmaamaya laakiin markuu noo yimaado sariirtii oo gabar ka soo asxaabtayda markay ii ama reerkayga gabdhihii ila joogay maanta dhan ku kor fadhiyeen oo anigu aan maanta dhan marna geeska uga baxay oo cunugi maanta dhan halka ka orday oo basaasad caana xagga geeska ay ka taala sariirta what kind of life is that nolosha ninkaaga uu yani markay helaya maxay tahay ma hilmaamaya daalka iyo dhibka uu soo maray ma hilmaamayo meesha intay uga laba ziyaado wuxuu leeyahay wallahi meesha nolol ii mataalo wuna iska tagaya laakiin maxaa laga rabaa
inaad priority siisid muhiimadda nadaafadda gurigaaga adigi gogoshiisi awlaadi waa in guriga markuu ninka soo galo ku farxaa nolosha aad ku sugantihiin ma ahan inuu ka xanaaqo ama uu ka naxo markaas ninka uu soo xiisayaa guriga imaashihiisa tan labaad aan sameeyno waxay tahay waxaan sameeynaa mostly gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeedba dabeecadaha kale aan leenahay waxay tahay waan idin sheegay waxa isku guursanaa baan idin dhahay inaa awlaad kaliya iska helno laakiin iskuma guursano nolol inaa isasiino الله سبحانه وتعالى بحيث الله قرآن كيسة وإذا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله فصاله 30 شهرا الله سبحانه وتعالى وحو الله وضع الصنع حولين كاملين نويري waxay danta ugu jirtaa baan familka oo dhan ee ma aan in cunuga kaliya danta ugu jirto familka ninka sabadan ugu jirta adiga sabadan ugu jirta cunuga waaba garanna naas baa wax weyn ilaahay baa ugu tala galayba adiga waxay danku ugu jirtaa inaa nasatid markuu ilaahay 2 sano ku yiri kala weynaysi awlaadaada 2 sano ma ahan sanad kasta inaad dhashid waayo hadaa sanad kasta dhashid waxa dhamaanaya muuqaalkaaga waxa dhamaanaya jirkaaga waxa dhamaanaya maskaxdaada caafimaadkaaga kulli waa soo gabagaboobaysaa waxaad isticmaalaysaa awood uu isan ilaahay kuugu talagalay inaad degdeg u isticmaashid dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin haduu ilaahay awlaadana siiyo maxay uga hadlaysaa awlaad ilaahay waa baxsha alxamdulillah intu siiya allah u barakeeyo laakiin maxaa meesha taala awlaadan sanad kasta aad dhalaysid adiga dan ma ku taha aabadashid maxay sanad kasta hal sano gudahood markaan dhalo hal sano gudahood markaan dhalo I mean 5 sano gudahood markaan dhalo 5 cunug isku xigta oo aan neefsasho lahayn oo sanad kasta ninkaaga goorma time u helaysaa gormuusa time ku helaya ma isweydiiseen sanad uur baa leedahay sanadna walac baa tahay sanadna umul baa tahay dhowrka bilood u dhaxaysana period baa habeen kasta kugu dhaca soma marka dadka goormay nolol qaybsanayaan horta goorma isfahmayaan goorma nolosha romantic ah ninkan karabti goorma ka helaysaa time ba hadaadan siinba ragga qaar baa waxay jecel yihiin sanad kasta inay dhasho intuu ka fakarayo inuu reer badiyo oo uu ka fakarayo inuu biri magac yeesho la dhaho wiilka reer hebel ah in hebel wuxuu dhalay 20 wiil waxa kaaga fiican haduu ilaahay ku siiyo 5 taas oo si fiican inta u korsatid moral fiican aad ku soo saartid birina mustaqbalkooda ay ku noqon dad u aaya waayo maanta maxaan soo saarnaa 20 caruur oo 20 kuwa jokoraayihiin 20 ka nolol aan haysan waxaad maanta waaqaca taagan fiiriya waxaan joognaa dalkan Kenya wadankeena Soomaaliya aan ka soo tagnay waxa arkaysaa cunug yar oo 3 sano jiro ama 2 sano jiro la ordaya maxaan ku dhihi jiray taayir bir gar hadaad marka soo dag uu ku dakhrayaa caruurta ka shan jirka agtooda lama mari jirin laakiin halkan wali ma aragtay cunug wadada ordaya wali ma aragteen cunug kasta iskuul buu galaa gurigiisa homeworkisa dadkii waxay isu fahmeen oo nolosha isku fahmeen awlaad inay helaan laakiin awlaad ina iska dhashid maahan awlaad ma awoodaan nolol fiican ina siisid ninkii markuu guriga soo gal uu arka buuqan iyo maalin kasta baambar baa dhamaaday caanihi baa dhamaaday cunug hebel baa qufac ku soo booday bari xagee ka aadaya gabar kasta ayadoo 7 dhashay waxa arkaysaa dhiig la'aan inta ku dhacday ku haysa ninkii baa naagayga daba guursay uma maleeynaysaa inuu noqonayo maxaa ka ku kalifay inuu saa ku noqdo yaa ku kalifay هذا كو كلفاي واي واحد قال يعني سميسي اولادنا نولل مسينس اسغنا تايم uma haysid wuu ardaya qolka kugu dhagan xataa meel fog ma aadayo guriga kugu dhagan gabadh yartoo joogto qolka kaligeed u xiran yahay buuq la'aanta ah baa lagaaga aadaya laakiin gabadhi buuqa badnayd oo 5 sano ah u dhalayso sanad kasta la dhaayna cunuga 2 bilood markuu gaaro ka shar naaska maxaa maanta lagu rabaa marka buuqa ugu batay maxaas adiga isu rabay weeyda markaas waxaan bilaabanaa hooyo kasta inay tiraado wallahi billaah ninka aan islaha meel yani biribu meel ka la soo baxay meelna igala muu soo bixino 8 aan oo dhalay halka ka dhaqaaqa abood alxamdulillah ilaahay awlaad waa baxsha laakiin ilaahay awlaad sida Soomaalida ay yani khaladka fikradda ay ka aamineen ma aha sida ilaahay uu tala galay ilaahay awlaad wuxuu ku dhahay kala weynaysi nolol si farxad si adii asagna nolol isku helay farxad waxaan idin kula talinayaa mar walba xawlayni kaamileen inaa ka dhabaysaan dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin oo anigu naaskayga caano ma lahan 40 ku iiga go'a say cunuga xawlayni kaamileen inuu jaa 2 sano kaamila adee kugu xiran tahay hadaa tahay hooyo mar walba jirkeeda iyo cuntadeeda ka fakaraysa tahay cunaysa cunno quality leh wuu helaya cunugaaga markaas caano ku filan hadaa tahay hooyo cunugeeda mar walba u nuujisanaadka sidoo ilaahay ugu talagalay maalinka waxa lagu talagalay 15 times 15 jeer cunugeena inaan nuujino laakiin maxaa sameeynaa marka u horeysa aan nuujino oo uu ooyo daasada farmasiga waxa uga soo qabanaa daasad caano ah see naaskaaga marka caano ku yeelanaya seebuusa
adiga yani jirkaaga hormoonkaaga see uur isaga difaaci kartaa ma iska difaaci kartid waxaa noqonaysaa cunugina naaska caanaha inaad siisid basaasada caanaha siisid bil adoon dhalnayna uur lagugu soo sheego noloshaada ka fikir si aad u soo saartid ilmo quality leh ninkaagana aad time ugu heshid mar walba hadalkayga waan ku dheeraaday waqtiga gabagaba ah topic aad u tiro badan waayo run ahaantii waxa ii dhiman I don't know wax aad u tiro badan baa ii dhiman waxaan ku soo koobayaa adiga ninkaaga mar walba ahaada laba qof oo time isla qaata for example family weyn hadaa tihiin mar walba waxaad u baahan tihiin labadiina time idin gooni ah ma ahan markuu shaqada ka yimaado oo uu daalan yahay time-ka idin goonida ah inaad kaliya sariirta inta tagtaan oo casho aasiisa aad tiraadid reer hebel baa waxay ku dhaceen iyo cunug hebel baa soo dhacay time-kiina kaas ma ahan ka taga marmar caruurta ka taga banaanka u baxa soo sheekaysta meel quiet ah place taga labadiina soo sheekaysta horta maxaa noo kala dambeeyay aniga adi qaali maxaa igu soo kordhay adiga maxaa kugu soo kordhay waxaad u baahan tihiin take time labadiina inaad isu heshaan time tada kale waxaad u baahan tahay kale waxa la dhaho me time adiga naftaada time inaad u heshid ninkaaga markaa time ka siisid sidoo kale waxa lagaaga baahan yahay maalin oo aad adiga u baahan tahay time inaad qaadatid inaad soo enjoy garaysid inaad yani sometimes macallinkaaga iyo guri waa inaad dareentaa inaad adiga yani wax aad isku soo kordhin kartid naftaada waa inaadan noqon mid mar walba mid yani ninka bas sugaysa inuu wax ku soo kordhiyo me time marka waxaad ku qaadan kartaa waa adoo naftaada marmar kaliya inta meel fariisatid la hadla iska bax marmar gurigaaga joogtaa xaaskaaga caruurtaada bax sometimes meelahan iska tag yani meel quiet place oo meel waxa jiro dadku bini aadanka ay ku nastaan tag kaliya adoo uusan xataa ninkaaguna kula socon fakar kaliya qorshayaal badan ku soo kordhi gurigaaga iyo ninkaaga iyo reerkaaga caawa markaa la timaad take time-ka markaa labadiina time wada qaadanaysaan wixii aad markaa me time-ka soo sameynaysay waa inaad la sheergaraysaa asagii hadalkayga waan dheerayaa umalaynaya sidoo kaleeto waa inaad soo saartaan awlaad aad jeceshihiin waxaan sameynaa aabbayaal badan waxay sameeyaan markii ay guriga yimaadaan mag xataa awlaadooda ma siiyaan naxariis iyo jacayl badan aabbihii baa soo galaya cunugii baa ku ordaya mid kalea ku ordaya waxaa laga yaabaa inuu dho fariista horta bal fariista soo ma fiicnidiin xabada nacnaca inuu siiyo kadibna qolka u galo jacaylka cunugaaga aabbaha cunuga uu kaga baahan yahay ma aha nacnac inuu siiyo oo keliya wuxuu u baahan yahay aabbaha inuu cunugiisa la sheekaysto wuxuu u baahan yahay aabbaha haddii xataa aad mar walba cunugaaga labadiina waalid aad noqotaan priority haddaa cunugii ilmihii siisaan ham muhiimadda haddaa siisaan oo aad mar walba cunugii la sheekaysataan oo aabbihii cunugii la sheekaysto oo la dhiskaas gareeyo hadhow cunugaas wuxuu noqonayaa cunuga xataa mustaqbalkiisa daba mustaqbal wanaagsan noqonayo la sheekaysta ilmihiina hooyo iyo aabba kasta see u soo saaraan ilmo wanaagsan mar walba markii aad argument ama muran dhexdiina u yimaado ha ku doodina ilmaha hortooda sida ay Soomaalida dhaqan u tahay ha isku gacan qaadina ilmaha hortooda ha ku caayin aabahood hortiisa caruurtaada fadhida waayo caruurta kama helayaan niyad dhis ee waxay ka helayaan niyad jab waxayna u maleynayaan nolosha dhabta inay tahay in la iscaayo oo kaliya laakiin marka cunugaaga ka qarisid xumaan kasta oo ninkaaga leeyahay oo markii ninkaaga aad meel gooniya wax kasta ugu sheegtid cunugaaga wuxuu dareemayaa inuu aabahan xaq leeyahay oo yani muhiimad aad u sareysa nolosha ku leeyahay hooyaduna muhiimad aad u sareysa anyway cafwan time-kan ku dheeraaday waqtigaa gabagaba igu ah wixii su'aal hal ama laba waa ka jawaabaya insha Allah su'aashan weydiina dhakhtarda waxay waaye waxa dhahday wiilasha yar yar lama baro sidee wax u qabsan lahaayeen is wax samaysan gabdhaha ayaa lagu shaqaystaa anaaba soo arkaybo gabdha yar I think 11 years ay jirtaa wiilkana uu ku xigaasna waa 10 years uu jiraa hadda aniga waxaan ka imaaday safaraan ka imaaday Gaarisa walaashayda Soomaaliya ka imaado accident meesha ku soo gashay iyo arrimo kale aan u tagay gabadh wiilkaas isaga ah wax uu qabsanayo malahan gabadhiya maanta shaqaynayso wax bay qabanaysaa sariirtiisa u soo goglaysaa hooyadii dharkii u dhaqaysaa markaan ku iri cunugan iyo gabadhan isku mid waaye gabadha maxaad ugu shaqaynaysaa oo wiilka asaga waxba ugu diraynin wiil waaye si wax u sameynaya ay dhahday sidoo kale xitaa gabadhi waa laga belief gareeyay inuusan wiilka waxba total ugu qaban karin oo wax in loo qabto ma ogiya taas camal iyo dadka Soomaaliya ka imaada waliba special dadka Soomaaliya ka imaada si loo wacyi gelin karaa oo lagu sheegi karaa inay labada wiilkii gabadhaba ay hal dhahay ay noqdaan same wiilka wuxuu qabto gabadhana qabto gabadhu waxay qabteen sida kale wiilkan uu qabto su'aasha kale weydiinaa waxay tahay husband good sida lagu noqo wiilka ninkii ku noqon karo ninkii gabadhu waxay bawaaybo xaas fiican way tahay ninkii wax kastoo dhan u qabanaysaa wax kastoo dhan u sameynaysaa laakiin ninkii markasta oo wax fiican loo sameeyo Soomaalideenada nimankeena waliba aan nimanka dhan ma ahan laakiin qaarkood
haddaa wax u samaysid wax uu kaaga mahad celinayo male wax uu ku siinayo ma lahan soo ninkaas isaga ma noqon karo nin fiican gabadhiina wax kasta way samaysay wax alla wixii uu ku farxi lahaa wax alla wixii maxaa lahay uu ku dhiirigelin lahaa garabkiisa bay istaagtay everything giba u samaysay laakiin asagii uma arka taas ayada soo marka ninkaas laga soo noqonaya thank you very much tan horta koritaanka ilmaha waa taan hadda sheegaynay oo aan dhahaynay guriga haddii aysan isku mid ka noqonin wiilka iyo gabadha koritaankoodii waxaa qaldamaya inuu wiilkaas wiil wanaagsan noqdo qof wanaagsan oo meel iska soo saari kara waxaan idinku baraarujinayaa ciladaas waa cilad aan leenahay gabar kastaana kusoo kortay in wiilashii oo fadhiya gabdhihii ay shaqeeyaan run ahaantii wiilashii in loo naxariisto waa sax yacni waa dad walaalo ah oo nala dhashay laakiin waa inay ayagina noo naxariistaan taas waxaa keliya oo ku baraarujin karta waa hooyada markii anigii oo 10 jir ah oo iskuul la ii daray ama dugsi la ii darayo wiilkii walaalkay ahaa oo iga weynaayo oo 20 jirka ahaa la igu dilayo quraacdiisa inaan sameeyo la igu dilayo asoo jiif inaan dharkiisa soo qaado saxda ahaa la igu garaacay farxalka inaan u geeyo niyadeyda markaas way jabaysaa waxaan isu qabayaa mar walba inaan ahay qof u taagan kaliya inay wiilkaas noloshiisa baaquligiisa iyo saxankiisa ka fikirto laakiin markii hooyadii ay tusto cunuga ay tiraado waryaa iskuul bay ka timid u jarjar baradhada ayadana digsiga ha dhaqdo saliidda ha ku sii shubto waxaan isu arkayaa inaan ahay qof haysato qof wax caawin kara tan kaleeto oo ah ninka wanaagsan run ahaantii waxaa jirta run ahaantii waa xaqiiq jirta taas niman badan oo waxaa jira wanaag badan loo sameeyo aanan garanaynin wanaagoodii maba arkaanba wanaagga aad u samaysay maba arkaanba sida aad yacni niyadaada iyo qalbigaaga aad u siisay waxaa laga yaabaa inuu ninkii uusan kuugu jawaabin sida aad u baahnayd gabar baa waxay tiri ninkayga bay tiri waxaan ka baxay bay tiri umul baan ka baxa 40kii markaan ka baxay baan wiilkayga waxaan u dhigtay bay tiri umul bax ilma yar aan dhalay gabar yar aan dhalay waxay tiri maalinkaas saaluun xataa ma aadina gabadheedii saaluunka ii sameynaysa guriga iigu timid waa la ii hagaajiyay cilaan baa la ii saaray aniga dhan nooc kala la iga dhigay aniga wiilkayga waa umul aniga ilmahayga waa umul baxaynaa bay tiri waxay tiri ninkii markuu yimid waxaan rabay bay tiri inuu idhaho maanta aad baad u qurux badanta yacni farxaddii uu nala wadaago galabkii buu yimid xaflad wax yar oo macaan baan u diyaariyay aniga waxaan iska dhigay bay tiri fooqal caqli marka horena gabadhaas waxay gabdhaha quruxda u dhashay xaqiiqda marka idin sheego gabadhay quruxda badneed markay isa sii qurxiso maxaad ka sugi sucaad mahadsanid annaga marka aan ka fakarno intaana awlaada haysato oo hadda wax korsanaysa intaana rajaynaysa insha Allah aan korino ilmaheena si fiican aan u kor ay cadaalad ku siman tahay gabar faalxin horta ma jirto alxamdulillah wallahi gabar kasta she's a diamond gabar kasta way qurux badan tahay laakiin Soomaalida ma tiraad gabar dameerhe naagahe waa dameer la bilay yacni tan u faalxun haddaad maanta u labistid qof bay noqonaysaa marka gabadha quruxda badneed markay is qurxiso diamond baa u ekaanaysa Soomaa meesha la rabay inuu markuu soo galo ku farxo oo dhow maasha Allah maanta aad u qurux badanta indhaha iga gashay waxay tiri sariirta geeska saan markii u taalay halkaas oo kale intuu fariisto dhabarka igu soo jeediyay bay tiri markaas wuxuu yiri bay tiri maanta maxaa guriga ka jira xaqiiqiyan waa niyad